hadduu unkod yahay jacaylku nimciyo roob soo iftiimay gugooyna soo cabaaray anigu waan yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo adaan sumar odhan lahaa. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawade halkan waa barta youtube ee bagax media. haddii ay tahay markaagii kugu horreysay ee aad soo booqato fadlan subscribe noo dheh, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee haleela xogta xaqiiqda ku salaysan ee aan idiin soo gudbinayno. sidaa oo kale muuqaalada aan idiin soo gudbinayna haddii ay noqdaan kuwo ku raaligeliya islamarkaana aad ka hesho sii sheer garay si asxaabtaadu sidaa oo kale ay kaga bogtaan islamarkaana la wadaag asxaabtaada. adsantahay anu muqdishaan ku dhashay, waxaan dhashay 84 waxaan ku koray Ceergaabo. alfanaan maxamed saciid cabdi bikey. wax badan oo aadan ogeyn ka baro taariikh nololeedka maxamed saciid bikey. xagee buu ku dhashay, goormee ayuu fanka ku soo biiray, haddaba waa tee heestii ugu horreysay ee masraxa uu la soo fuulo maxamed saciid cabdi bikey. sidaa oo kale waa abwaan la xamiiste eryadiisa samaysta. haddaba heestii ugu horreysay ee bikey sameeyo, heestii ugu horreysay uu laxan ka saaro, intaba wax ka baro taariikh nololeedkiisa oo aan idiin soo gudbin doono. haddaba daawade ma aaminsan tahay in maxamed saciid cabdi bikey uu yahay fanaan ku dhashay magaalada caasimadda ah ee muqdisho? waxaan idiin soo gudbin doonaa xog badan oo qarsoon islamarkaana wax badan aadan ka ogeyn ayaad barta youtube ee bagax media kaga bogan doontaa hadduu rabbi ka raali noqdo. maxay tahay sababta bikey loogu bixiyey? maxaad ka og tahay naaneysta? halkee bay ka timid? daawade inta aan ku guda jirno barnaamijkan gaarka ah ayaad intaba ka bogan doontaa hadduu rabbi ka raali noqdo. hadduu unkod yahay jacaylku nimciyo roob soo iftiimay gugooyna soo cabaaray anigu waan yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo adaan sumar odhan lahaa. magaciisa oo saddexan waa maxamed saciid cabdi. badi dadka ayaa waxay u garanayaan maxamed bikey. waxa uu dhashay 1984. maxamed saciid cabdi bikey ayaa waxa uu ku dhashay magaalada caasimadda ah ee muqdisho. bikey waxa uu ku soo barbaaray yaraantiisii magaalada Ceergaabo. dadka ayaa badi waxay u garanayaan maxamed bikey waa fanaan soo shaac baxay islamarkaana fankiisa bannaanka u yimid sanadihii 2012, 2013, 2014 ilaa iyo haatan waa fanaan geyiga Soomaaliyeed iyo guud ahaan dunida aad looga garanayo. haddaba maxay tahay sababta gaarka ah ee uu ugu baxay magaca bikey? maxamed bikey ayaa waxa uu sheegay in yaraantiisii uu aad u jeclaa shaaha islamarkaana la oran jiray maxamed bakeeri. sidaana loo soo gaabiyey magaca bikey uu ka yimid bakeeri. bikey ayaa waxa uu ka yimid bakeeri maadaama ay israaceen ba'da iyo ka'da. sidaa ayaana magaca loo qurxiyey oo loogu bixiyey bikey. haddaba maxamed saciid cabdi bikey ayaa ka hadlayo sababta gaarka ah ee magaca loogu bixiyey iyo halka uu ka yimid. bikey naanays bay ahayd, anigu shaahan aad ugu xumaa, marka bakeeri baa magacu ahaa, waa la soo gaabiyey bikey, sidaa darteed baa loogu bixiyey. daawadayaasha badi ayaa rumaysnayn islamarkaana aaminsaneen in maxamed saciid cabdi bikey oo waayadii dambe muuqaalo gaar ah oo laga soo duubay uu kaga hadlayay magaalada caasimadda ah ee muqdisho islamarkaana uu u hadlayay si caadifad ay ku dheehan tahay, aysan rumaysnayn in uu ku dhashay bikey muqdisho. maxamed saciid bikey ayaa sidaa oo kale mar uu hadlaya dhowaan waxa uu sheegay in marka laga tago gobolada iyo magaalooyinka kale ay ka badan yihiin haddii laga reebo muqdisho. bikey ayaana ku dhashay magaalada uu sidaa leeyahay oo ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho sanadku markuu ahaa 1984.